barasaabka gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise Shiine iyo duqa caasimada Gabiley Mudane Maxamed Aamin Cumar Cabdi ayaa saaka kulan la qaatay isku duwayaasha laamaha wasaaradda gobolka Gabiley oo ay ka soo qayb galeen maayirada degmooyinka hoos yimaada gobolkani Gabiley. Kulankaasi oo ay saxaafadu dibadjoog ka ahayd kadib markii uu soo idlaaday kulankaasi waxa warbaahinta la hadlay barasaabka gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise Shiine iyo duqa caasimada Gabiley Mudane Maxamed Aamin Cumar Cabdi. sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Timcadde waxaana mas'uuliyiinta hadaladoodii kamid ahaa shir hordhaca oo aan ugu gogol xaareyno shir socon doona 2 maalmood oo ka dhici doona jaamacadda Timcadde ee gobolka Gabiley oo laga hadli doono si aan u dhameystir lahayn una diyaarin lahayn barnaamijka qorshaha horumarinta gobolka 3 sano soo socota 2016 17 18 oo aan 2 maalmood u fadhiyo doono gelin hore gelin dambe qorshaha shirkan ma aha oo kaliya hay'adaha dawladda kaliya inuu ka casuunay cid kasto aqoon-yahana oo gobolka leeyahay iyo cid kasto ay fikrad haysa oo ku casuumanta haday madax tahay dhaqan haday boqor tahay haday salaadiin tahay haday uqaal tahay oo ku casuumanta shirka inay ka soo qayb galaan 3 sano soo socda runtii maadaama sanad dhamaaday in review lagu sameeyo qorshihii hore jiray wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomin wixii runtii lagu dari karana lagu daro muhiimaduna waxa weeyaan in xagga developmentka ama horumarka ama baahiyaha ummadda inaynu taabano baahiyaheeni ka bacdi aynu ka hawlgalno baahi kasta sidaynu u dabooli karno qorshahaynu ku dabooli karno iyo cid ay naga taageeri karaysa baahiyo waxay u kala baxayaan baahiyo aynu inagu qabsan karno baahiyo bulshadeenu qabsan karto in iska kaashan karno iyo baahiyo aynu uga baahanahay dawladda ama hay'adaha caalamiga marka inaynu qorshaha runtii sameysano inagoo isku dhan jaamacadda Timcadde runtii martigelin doonta aad iyo aad baan jaamacaddan ugu mahad celinaynaa insha Allah wasaaradaha iyo shir baan isku iman doonaa 2 cisho socon doona waxaana filayaa inaan hadal badan meesha laga sii jeediyay laakiin waxaan idin sheegayaa gobolka Gabiley oo inta badan astaan u ah in la yiraahdo aqoon waa macnaheedu dad gobolka maaragtay xagga aqoonta macnaheedu loo soo doonto ama dadka macnaheedu aqoonyaha fara badan ay ka yimaadeen waxaan maanta jecel lahay in aqoontii ay timaado oo aynu la nimaadno qorshe wax tara oo gobolkeena wax u tara iyo wadankaba waayo waxaan jecel lahay maadaama waa gobolka macnaheedu ugu wax soo saar badan xagga beeraha marka anu waxaan kulli jecel lahay in awood aynu saarno sidaynu Soomaaliland warta xagga raashinka aynu uga qabtiri lahayn mashaariic macnaheedu beeraha ah oo wadankoo dhan wax tara oo raashin nagu filan soo saarno in awoodda saarno iyo wixii kale gobolka aynu maaragtay ku horumarin karnaba in arrinkaasi aad focuska loo saaro ayaan jecelahay waxaan jecelahay kulli in aqoonyahan Farxaan Cabdi Qodaal News Gabiley.